muddo 10 cisho ka badan ayaa qaboojiyaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco waxa ku jira meydka inan yar oo daadeeda lagu sheegay 9 jir oo lagu magacaabo Xaliime Cabdirasaaq Cabdilaahi Salaad taasoo la sheegay inay u dhimatay dhaawac ka soo gaadhay kubsi loo geystay inanta yar ayaa la sheegay in laga soo qaaday dhinaca magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland si loogu daweeyo magaalada Burco kadibna dhaqaatiirtii loo geeyay ayaa sheegay in inanta yar la kubsaday waxaana loo gudbiyay cisbitaalka guud ee magaalada Burco halkaas oo ay ku gooriyootay meydkeedina uu ku jiro qaboojiyaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco Cabdikariin Hayaan Maxamuud oo aanu xiriir la sameynay waxna ka weydiinay arintan ayaa Saab TV u xaqiijiyay in meydka inantaasi ku jira qaboojiyaha cisbitaalka arintuna ay la xiriirdo kufsi loo geystay isla markaana dhaqaatiirtu ay baadhitaan ku sameeyeen wixii ka soo baxana ay bulito u gudbin doonaan hay'adaha shaqada ku leh Cabdikariin Abshir Nuur iyo Axmed Salaad Nuur Jaamac oo ah ehelada inantan yar oo Burco soo gaaray kana soo kicitimo dhinaca magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay arintan waxaana kamid ah hadaladoodii taariikhdu markay ahayd 16 bishii 2018 ayaa dhacda foolxun naloo soo sheegay dhacdadaas oo ah anagoo magaalada Muqdisho joogna ayaa waxa la yiri meyd baa in yaala waa soo kacna maalintii Sabtiga habeenkeedii subaxdeeda markay tahay 2 baa waxaan nimid magaalada Hargeysa ka bacdi waa ka soo tagnay waxaan nimid magaalada Burco 4tii habeenimo dhacdadii marka la kulanay adigu ilaa hadda waxaan joognaa magaalada 12 bari meydkaasna wuxuu noo yaalaa 12 bari dawladda Soomaaliland marka si wanaag iyo sharaf leh noo soo dhaweysay baaritaankeeda ku wada anaha waa ku qanacsanahay waxay sida ku wado waxaan rabnaa maadaama Soomaaliland meyd noo yaalo waxaan rabnaa kiiskaas in loo soo dedejiyo magaalada caasimadda ee Muqdisho maalin anagoo joogna markay tahay 8 saac oo maalmeed noo soo dhacay warar xun oo wararkaasi yihiin magaalada Burco ayay ka soo yeereen nooga soo yeereen maadaama ay nooga soo yeereen waxaan niri maxaa jira waxa la yiri gabar baa taala magaalada isbitaalkeeda markaanu sidaas dadkii sii su'aalay waxa la yiri gabadhaas kufsiina lagu sameeyay isbitaalkeena taala furtiyeer bayna ku jirtaa dadkii wakiilka ka ahaa si degdeg ah ugu yimaado markaanu meeshii nimid ayaan magaalada ka soo duulay oo Hargeysa baabuurna diyaaradna keentay magaalada la yiraahdo Burco ayaan 4 saac habeenimo 4 saac habeenimo markaan nimidna waxa naloo sheegay in gabadhi furtiyeer ku jirto waagii baan noo bariyay waxaan tagnay qaybta booliskana waxay nagu wareejisay isbitaalka gabadhii inay furniture ku jirta ayaa naloo furay markaa ka bacdi Xaliimo oo laga soo qaaday iyadoo dhaawaca magaalada Gaalkacyo dhanka Puntland markii laga soo qaadana waxaa la keenay magaalada oo dhakhtar ahaan bay waxaa loo keenay magaalada Burco markii la keenayna gabadhaasi waxa weeye dhaqaatiirta waxay keeneen isbitaalka Burco markii la keenana gabadhii halkaas ay ku geeriyootay dhaqaatiirtu waxay ka warbixisay gabadhaasi kufsi qanul caadi loo geystay nabarada hooyadeed ka muuqda in lagu bahdili jiray in ay qariso falka dhacay in qariso in lagu bahdili jiray oo ay qariso noocaas ayaa nabaradaasna loogu geystay Saciid Maxamed Faarax Dugulle oo ku xiran saldhigga magaalada Burco oo ahaa gabadha ninkeedii Farxiye ninkeedii ahaan jiray ilmahaasna uu dhalay nin kale oo hadda ka hor ay fureen oo adeer aanu ahay oo la yiraahdo Cabdirasaaq Cabdulaahi Salaad Nuur waxaan codsanaynaa sharciga islaamka iyo sharciga maadiga iyo sharciga Soomaaliland in ninka sharciga nala horkeeno si degdegna noo waafajiyo meydkaasna noo nasteexeeyo godka loo galiyo Farxiye Maxamed Salaad oo ah hooyada dhashay inanta dhimatay isla markaana uu qabay ninka loo haysto kufsigan oo iyada lafteeda ay ku yaalaan nabaro uu geystay ninkaasi ayaa u warantay Saab TV kana warbixisay wixii dhacay bismillaah aniga Farxiye Maxamed Salaad halkan waxaan ka cadeynayaa in gabar yar aan dhalay iga geeriyootay isbitaalka Burco gabadhaas aan u keenay kaadida oo haysa goortii la keenay dhakhtarkana wuxuu yiri waxa ku yaala kufsi dhaqaatiirtuna waxay cadeysay kufsi inay u geeriyootay dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa falka cidii geysatay in sharciga hor keento Barsaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd oo iyagu maalmihii u dambeysay arrimaha la socday si weyn uga howlgalay ayaa Saab TV u sheegay inuu xidhan yahay ninkii loo haystay kufsigan inuu u geystay inanta yar isla markaana baaritaankii socdo marka uu dhamaadana la horgeyn doono hay'adaha sharciga leh marka hore Saab TV iyo Kaysa waa salaamantiin haddaan hawshan u dub ugu noqdo mucjiso aynaan arag
ama ku yarba adduunka maqalkeedu ayaa burca ay la soo galeen niman gaalkacaya ka yimi ina yaroo 9 jira ayaa sida dhakhaatiirtu caddeeyeen faraxumaan ku sameeyeen hooyadeed qabay ninka wuxuu keenay halkan asigoo soo fogeynaya malaadeese qaba meydkeeda inanto sakaraado ay la socoto hooyadeedna tada dhakhtarka Daarul Xanaan buu geeyay Daarul Xanaan markay baadheen waxay ogaadeen in kaliyu istaageen oo inanta galma lagu sameeyay iyo dil markii dambe ka dambeeyay oo la garaacay ay sabab u tahay xanuunkeeda in hada hayna way geeriyootay dhakhaatiirtu waxay caddeeyeen markaa inanta cidii dhashayna keenan nootaayuu tagay wuxuu yiri aniga dhalay oo aabbo ah dhakhaatiirtii waxay ku qanci weyday inuu ninkaasu dhalay inanta cid ku cadaysan la kale bay yiraahdeen adigoo arintiisii bay ku fashilatay imkana si ay dhiida gacanta ku haysayo dhakhaatiirtii meydkina muddadaas u yaala ninkina waa xiran yahay wixii xadhiga ka soo baxa ee cadeyn ay keento ee maxkamadda cadayso ee si ay dhiidu cadaysay dhakhaatiirtu cadayso ayaa meesha imanaya gabadha lafteedii uu qabay asugu inanta dhashay ninka kale u dhashay ayada lafteedu waa la wareysay ayada lafteedu wax badan bay dhaqaajisay inuu dhibta ninkeedu leeyahay ayada lafteedina uu dilay ayaa cadaysay laakiin waxa marka maxkamadda la geeyo ayuun bay soo baxayaan oo cadaynta imanaysa dambiyada waxna waa wax laga soo galay leeynoola yimi oo inanta kufsigeedii wixii halka leeynoola yimi waxna waa wax halkan burcada Soomaaliland dhexdeeda laga galay oo ah ma taqaan inanta ana dhalaydan uu nootaayada ku sameeyay uu doonayay inuu ku usxabaalo taasuna waa dambi kale lafteedu marka labada arrimood ayaa meesha isbarkan Kays Axmed Digaale SABT في برعو.